Assalaamu calaykum. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay guntii iyo gabagabadii buuggii How to Influence and Influence People. Sidee loo kasbadaa saaxiibo dadkana loo saameeyaa? Sidaad u ogaatid nala soco. Inaad hogaamiye wanaagsan noqotaa aad bay muhiim u tahay. xirfadaha hogaaminta oo aad yeelataa kaliya kaama caawinayaan inaad ogaatid wixii aad samayn lahayd, se waxay kaloo ku taraan inaad ogaatid qaabkii aad u samayn lahayd. qoraagu wuxuu noo sheegayaa inay hogaamintu awood kuu siinayso inaad fahanto sidii aad dadka u sixi lahayd. muujinta hogaamintu macnaheedu waxa weeye inaad fahantay xaalad kasta farsamooyinkaad adeegsan lahayd. haddaba qaybta afraad ee buuggan ayaa ah noqo hogaamiye. haddii aynu u nimaadno qodobka koowaad, ku bilow ammaanid iyo qadarin daacada. hore buuggan waxaynuugu aragnay inaynan cid canaanan, si qoraagu sidaa ugama jeedin, ee ujeeddadiis waxay ahayd iskudayga inaad ka dhigtid canaanta midaan la dareemi karin. haddaba su-aashu waxay tahay, sidee ayaan sidaa u samayn karaa? ugu horreyn, ha ku bilaabin qofka canaan iyo naqdin. waxa markasta fudud inaynu dhegaysanno kelmadaha aanu dhibsanayno kadib markii laynagu ammaanay waxyaabihii fiicnaa ee aynu qabannay. ku bilaabidda ammaantu waa sida dhakhtar ilkood oo ku bilaabaya shaqadiisa sooxiso. bukaanku weli wuu dareemaya in ilkiisa laga shaqaynayo, laakiin sooxisada ayaa dilaysa xanuunka. sidaa awgeed waa inaad ku bilowdid canaantaada hadallo wanaagsan. haddaba haddii aad taagan tahay boos hogaamiye oo aad tahay waalid amaba macallin iyo wixii la mid ah, isla markaana aad rabtid inaad qof canaanatid, waxaad markasta ku bilowdaa inaad ammaantid waxyaabihii fiicnaa ee uu qofkaasi qabtay. intaa kadib way u fududaan doontaa qofka kale inuu dhegaysto naqdintaadii. qodobka labaad, si dadban u tilmaan dadka kale khaladaadkooda. maalin maalmaha ka mida Charles oo dhex maray mid ka mida warshadihiisii, wuxuu arkay qaar ka mida shaqaalihiisii oo sigaar ku cabay meel ay mamnuuc tahay in lagu cabo. Charles kuma uu odhan miyaydaan ogeyn inay reeban tahay in goobtan sigaar lagu cabo, laakiin intuu raggii u tagay mid kastana sigaar u dhiibay ayuu ku yidhi, waxaan aad u qadarin lahaa inaad kuwan dibadda ku soo cabtaan. shaqaalihii sigaarka cabaya way ogaayeen inuu ogaa inay xeer jabiyeen, wayna ku ixtiraameen inaanu waxba ka odhan, islamarkaana uu hadiyado yaryar siiyey. dadka badankoodu canaantooda amaba naqdintooda waxay ku bilaabaan ammaanid run ah, waxayna ku xigsiiyaan kelmadda laakiin, islamarkaana waxay ugu dambaysiiyaan canaantoodii. tusaale ahaan, haddii aynu doonayno inaynu beddelno ilmo yar dibudhiciisa waxbarasho, waxaynu odhan karnaa, aad baan ugu faraxsanay barrosaad kor gu qaaday darajooyinkaaga teerankan, laakiin haddii aad ku sii dadaali lahayd aljabrada natiijooyinkaagu sidan way dhaami lahaayeen. haddaba xaaladdan waxaa laga yaabaa inuu Barre dareemayay in la dhiirigeliyey ilaa iyo ka maqlay kelmadda laakiin, oo waxaa markaasi dhici karta inuu wax iska weydiiyo ammaantii hore daacadnimadeedii. arrinkanna waxaa lagaga hortegi karaa annagoo u beddelna kelmaddii hore haddii, sida aad baan ugu faraxsanay barrosaad kor ugu qaaday darajooyinkaaga teeramkan, haddii aad dadaalkaaga sii xoojisidna teeramka labaad darajada aljabradaadu sida kuwa kale ayay kor u kaci doontaa. iminka Barre wuu aqbali karaa ammaantan, sababtoo ah kumaynaan xigsiin wax tilmaamaya dhiciddiisii. si dadban oo tolman waa inaad wax u naqdisid sidaad u saxdid qofka kale. qodobka saddexaad, ka hadal khaladaadkaaga ka hor intaanad qofka kale canaanan. qirashada uu qofku qirto khaladaadkiisa xitaa isaga oo aan sixin khaladaadkaasi waxay ka caawinaysaa inuu qofka kale ku qanciyo sidii uu u beddeli lahaa dabeecaddiisa. tani waa hab kale oo lagu fudaydin karo canaantii iyo naqdintii. waxaynu tusaynaa qofka kale inaynu fahmayno oo arrinkani annagaba nagu dhacay, waxayna muujinaysaa inaynaan ka sarrin qofka kale. si kastaba ha ahaatee, waxaad qofka kale ogeysiisaa inaad adiguba khaladaad badan gashid, una muuji inaanu dhaqan ku ahayn khaladaadka uu galay iyo inay iska caadi tahay. sidoo kale u sheeg inay ka wanaagsanaan lahayd haddii uu hab kale u mari lahaa, islamarkaana ay fiican tahay inuu iminka ogsoon yahay khaladaadkiisa, si ka fiicanna marka dambe hawshiisa u gudanayo. qodobka afraad, halkii aad amarro ka bixin lahayd dadka weydii su'aalo. inaad qofka kale weydiisid su'aalo xaggii aad amarro ka siin lahayd waxay kor u kicisaa hal abuurka qofka kale iyo ku lug lahaanshaha uu ku lug lahaanay amarkii aad siin lahayd. cidna ma jeclayn markasta lagu yidhaahdo sidan samee, waxaan qabo, halkan mar iyo wixii la mid ah. waxaa sidaa ka wacan adoo qofkii su'aalo weydiiya, islamarkaana aad xal wada gaadhaan. markaynu dadka su'aalo weydiinno, waxaanu fursad u siinaa inay iyagu iskood isku diraan. haddaba haddii ay u maleeyaan inay ka qayb qaateen go'aankii, markaa niyad bay u haynayaan inay qabtaan wixii aad jeclaan lahayd inay qabtaan.
isku midna maaha inaad qof ku tidhaahdo sidaan samee sidaan ha sameen kan qabo iyo inaad ku tidhaahdo miyaad u malaynaysaa inay fiican tahay haddii sidaa iyo sidaa miyay kula quman tahay fikraddani. qodobka shanaad, wejiga ha ka xumeyn qofka kale. Frank kana yimid Harrisburg isagoo ka sheekeynaya dhacdo soo martay shirkadoodii wuxuu yidhi mid ka mid ah shirarka ayagii ayaa waxaa dhacday in guddoomiye ku-xigeenku weydiinayay su'aalo cadcad oo la xidhiidha qaabka wax soo saarka mid ka mid ah kormeerayaashii badeecadda. dhawaaqa codkiisa wuxuu ahaa mid hanjabaad badani la socoto, waxaanuu si toos ah u tilmaamayay khaladaadka waxqabadka ee dhanka kormeeraha ah. haddaba kormeerihii si aanu uga hor eeboobin xubnihii kale ayaa uu jawaabihii amaba hadalkii u laalaabay. taasina waxay sababtay in guddoomiyihii uu xanaaqo, kormeerihiina aad u canaanto ilaa uu ku eedeeyey inuu beenaale yahay. xidhiidh kastoo shaqo laga yaabo inay dhacdadan ka hor jirtay wakhti yar gudihii ayay ku baaba'day. maalinka wixii ka dambeeyey kormeerihii oo ahaa shaqaale fiican ayaa noqday mid bilaa faa'iido ah. bilo kadib uu ka tegay shirkaddii, waxaana u shaqo tegay shirkad naga soo horjeeday, waanan fahansanay inuu halkaa shaqo fiican ka wado. Anna Mason, xubin kaloo ka mid ah fasalka ee isbarbar dhigaysa dhacdada mid la mid ah oo ka dhacday shaqadeeda, laakiin kala duwanaa qaabka iyo natiijooyinku. Mason oo ahayd mid takhasus u leh suuqaynta badeecooyinka ayaa shaqadeedii koowaad loo diray oo ahayd inay tijaabo ka soo qaato suuqaynta badeecad cusub. waxay fasalkii u sheegtay markii ay natiijadii soo baxday aad ayaan uga naxay, waayo waxaan sameeyey khalad weyn oo dhanka qorshaynta ah, waxaanay noqotay inaan tijaabadii dib u soo bilaabo. kaba sii darani waqti umaan haysan inaan kula hadlo guddoomiyahayga ka hor kulanka lagaga rabo inaan warbixinteeda ka gudbiyo mashruucii. markii laygu yeedhay inaan warbixintii soo jeediyo waan naxdin gariiray. si kooban ayaan u gudbiyey warbixinteedii, waxaanan tilmaamay sababtii aan u yeeray inay tahay khalad dhacay awgii iyo inaan dib ugu noqon doono tijaabadii ka hor kulanka dambe. waan fadhiistay anoo filay inuu maamulkayga uga xanaaqi doono, laakiin xaggii uu igaga xanaaqi lahaa iyuu iga mahad celiyey shaqadii aan qabtay, waxaanu tilmaamay inay caadi tahay inuu khaladku dhaco markuu mashruuc cusub yahay. waxa kaloo uu ii sheegay inuu kalsooni ku qabo in marka labaad uu mashruuc noqon doono mid faa'iido badan u yeelan doono shirkadda. waxaan ka tegay shirka isagoo madaxaygu kor yahay iyo inaan go'aansaday inaanan dib u niyad jabin maamulkayga. muuqaalka maanta iyo buuggani way intaasi noogu eegyihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.